kulanti wanaagsan kuna soo dhowaada waraysigan aanu la yeelanayno hodan cumar dhuule oo ah gabar u dhalay fanaankii weynaa ee soomaaliyeed cumar dhuule ee taariikhda iyo sharaftii karaamada ummadda dhexdeeda ku lahaa rabbi ha u raxmadee bal hodan intay ka xasuusato ayaanu wax ka ogaan doonaa iyo weliba dabeecadihiisii gaarka ahaa markuu guriga joogo iyo masraxa ama bulshada dhex jooga dabcan wuu kala duwanaa iyo weliba sida quruxda badnayd ee hodan iyo walaalaheedba usoo barbaariyey waxaa kaloo intaas dheer hodan laftigeeda ayaanu isku dayeynaa inaanu waxyaalo aanu ka ognahay aanu bulshada la wadaagno oo in badanoo idinka ka mida aysan ogeyn balse qosolka idinka dhammaan doono caawa haddii ilaahay yidhaahdo marka hore aan soo dhoweeyo hodan cumar dhuule sharaf iyo karaama ii tahay in aad waktigaaga qaaligaana siisay hodan soo dhowow waan dhowahay walaal macaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin wada salaamayaa dhammaantiin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركو هوري برنامج كان إيه طبعا كلا إيه بقول برنامج إن كبدل منا بكم سو كوبي كرنو نلجن كالصومالية الله ونحرس تاريخ نسي لكن وحرمنا بالوحير إن نكبرنه قفك أو أها بل تاريخ نسي واحد كهيسد إيه واحد كحسوسد سولو هذا وندوه ولا هرتول الأبو أبهاي وحوها شخصي آد وناكسن أدان كرادا عاو هالكنان قصو قادن يعني كما كوبكر لكن وحي ربان كاغا تاتابانيا عبد حافظ آبهاي وحو فانك كدحلي أوغي دولا علي با فنانها oo aabana uu ka dhaxlay isagoo 13 sano jirana fanka uu kusoo biiray walaalihii hargeysa taasoo ahaydna aab wuxuu ahaa fanaankii ugu horeeyay Soomaali ee gabadh matala gabadhi ma jirin wax gabadh la yiraahdo oo fanaanad Soomaali ma jirin walaa koonfur walaa waqooyi marka aab waxa fanaankii ugu horeeyay ee matala gabadh matala adeero alla yaa raxma محمد أحمد كل إنه هو يمكن تلجري أكتر مركا يعني قيب وين أيو أب فانكا وكسوقاتيو هلكن لو سوكو مكرن عاو وقرتي وحياليه مركو غوريغا جوغو او idin macsaynaayo masraxi ama fanki tagayo ama lagaaga sheegay ama adigu aad ogto xasuusatid maxaa kamid ah waxaa kamid ahaa cabdixaafid aabo wuxuu ahaa aabo awlaad jecel oo maaragtay kaftan badan oo nooga sheekayn jiray marba wuxuu soo maray iyo wuxuu markaa la kulmay iyo ma garanaysaa wuxuu noola sheekaysan jiray ama noola dhaqmi jiray aabo marna aabo ahaan marna walaalkeen naga weyn marna adeer ayuu noola dhaqmi jiray aabo intaasoo hoos ayuu aabo yacni noo soo geli jiray marba maaragtay oo muu ahayn aaba maaragtay aan caruurta la sheekaysan waxba u sheegin taasina intii dee hobladii waa beri ahayd adeeriya eedaba way ogaayeen oo awlaadiisa ku xaragoon jiray oo ka hayn jiray oo intuu yidhahdo soo labista waan baxaynaa maanta oo kaale maanta qadan halkaa u tegaynaa cashan caawa halkaa u tegaynaa yacni wuxuu nagu soo koriyey nolol aad iyo aad u qurux badan oo jacayl leh ixtiraam leh ma garanaysaa walaal yaa وقرتي waxa kale oo dadka aadka u yaqaano hoblada waa bari kamid ah qaarkood ay noo sheegeen inuu ahaa shakhsi deeqsiyo oo maanta haddaad wax intaas oo jawaan lacag u dhiibtid qofka u horeeyo siinaya gacan furan qalbi furan buu ahaa waxyaalahaas dadku ma idin sheegeen idinka ها وابن انت بدنا وابن arkayo waxaan xasuustaa cabdixaafid oo mar anagoo gaari saaran oo marayna elgaabta anagoo marayna ayaa laba wiiloo inamadan yar markaa anuu ma odhanay kolo dhuuq yani laba ciyaaladan yar ee banaanka ayaa islaynayay markaasaan yaabnay markaasuu wuxuu yidhi jooji gaariga inankii gaariga waday buu la hadlo yidhi jooji inankii gaarigii buu joojiyey aaba inamadii oo dhala isu jabsaday buu inama yar yar markaa ayaa dhala isu jabsaday inay isgeliyaan oo dee dagaalamay aabahay markaasu intuu dhex galayo kana ka tuuro maxaad isku haysataan markaasuu yidhi lacagteedu iga qaatay markaasuu yidhi mise ahayd intaa aabahay boorsada intuu soo saaray kana intan siiye wiil adna halkaa ka bax waxay la noqotay yacni wax aad iyo aad u maaragtay cajiiba ma garanaysaa naxariista yacni intaa la eg aabo wuxuu ahaa aad qof u naxariis badan oo hadduu arko qof dhibaataysan hadduu aqoon xitaa
maaragtay isku dayo inuu wax taro nagu soo noo sheegi jiro nagu gawaabin jiray marba haddaad aragtaan qofka ama ha weynaado ama ha yaraado qof dhibaataysan haddaad aragtaan idinkoon dadkana u sheegin idin ogaan buu na odhan jiray aabbo waxaad tari kartaan siiya ilaahu bikeeriga biyaha aad adigu markaa cabbaysa hadday tahay xitaa saasuu nagu odhan jiray cabdixaafido naxariis miran buu ahaa aabbo waa gartay waxyaalaha kale oo idinku tarabiyeeyey oo in badan ku dadaalay inaad qur-aanka barataan oo maxaa la yidhaahdaa iyo waxbarashada maajigaaba ayuu in badan idinka waaniyo idinkala hadli jiray oo guwaabadiisa ka mid ahayd maxaad ka xasuustaa adigu shaksi ahaan waxaan ka xasuustaa inuu aabbahay odhan jiray qofaan salaad tukanayn horta gurigayga maba joogaya qofaan salaad tukanayn salaanta ma qaadayo qofaan ilaahay isku xidhayn buu odhan jiray aniga waxba iima aha anna waxba uma ihi marka dee waa la yaryaraa waqtigaasoo markaan mararka qaarkood xasuusto alxamdulillahi rabbilcaalamiin waxaan idhahdaa ilaahu aabbahay naxariistii janno ka waraabi yacni wanaagga maanta wanaagga shalay uu nagu soo barbaariyey waa waxaanu maanta aan anaguna aan ku dhaqmayno ama carruurteenna aanu farayno ma garanaysaa walaal marka wuxuu odhan jiray waxbarta oo ma garanaysaa idinkoo wax baranaya mujtamaciina ku dhex jira haddana xidhitaanka idinkiiyo ilaahay marnaba yay lumin ayuuna odhan jiray ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya waxaa jira qofku markuu maqaamkaas sare oo kale uu gaaro markuu dadka uu fanka isku iyo saaxiibadii ula joogo iyo markuu joogo waa laba weeye markaa labada isbarbar dhigtid sawir ka bixisid noocaad ka bixin kartaa isleeda aabbahay markuu dadka la dhaqmayo iyo markuu annaga nala joogo waxaan odhan karaa in yar unbaa u yar dhaxaysa intaasoo ah yacni muxubbada uu annagana tusay oo waalid ahaan iyo dadka kale suu ula dhaqmayay mar walba wuxuu dhihi jiray mujtamaca la dhaqankeedu mar walba adoo faraxsan adoo ma garanaysaa aan cadho iyo waxba kaa muuqnayn dadka waa la samaystaa buu aabbahay buu odhan jiray yacni uu annaga dhanba nagu dhihi jiray marka waqtigaa waan yaabi jiray waxaan dhihi jiray see loo samaysanaa dad marka wuxuu ka wadaa yacni wanaag haddaad samayso dee ummadduna walaalo way ku wanaajinaysaa soomaa cabdixaafidow marka waxaad naftaada aad u diidayso dadka kalena aabba u diida buu odhan jiray oo yacni ha ku samaynina marka taasna waan uga mahadcelinayaa aabbaha ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye wanaaggaa maaragtay hadduu masrax taagan yahay iyo hadduu dad badan ku dhex jiriyo hadduu keligii yahayba nin wuxuu iska farxaan oo isagoo cadhaysan aan la arkaynin mar walba isku daya inuu hadduu xitaa soo galo meel yara maaragtay densano xoogaa dadku isku yara wuxuu isku dayi jira aabbahay inuu intuu istaago uu maaragtay dadkii ka qosol siiyo uu bedelo maaragtay wixii lagu jiray markaa ayuu ahaa aabbahay walaal waa gartay dabcan waxaanu ognahay taariikhdiisa buwaag in laga qoro mudan yahay oo maaragtay wax annagu aan soo koobi karno ma ahan dadkii kale oo naga waaweynaa ee la soo cayshay baa weli jooga waana hubaa inay dad fara badan taariikhdiisa inay qoraan iyo inay ka sheekeeyaan bay isku dayi doonaan waxa dhacday aabe in qadar ilaahay u timid uu geeriyooday wixii dabcan kuugu naxdinta badnaayo kusoo maran ay ahayd maxaad geeridiisii ka xasuusataa adigoo mahadsan geeridiisii walaalo aabbo laba habeen ka hor ayaan anigu aan wada hadalnay oo aabbu wuxuu u soo socday ingiriiska oo uu iman lahaa oon fiisa u helnay marka laba habeen ka hor aabbo markuu dhiman doono anaa ugu dambeeyey oo aan wada hadalnay maalintii geeridiisa la iisoo sheegayna cabdixaafidow meeshii i go'day yacni ilaa maanta xaqiiqdii walaalo way maaragtay way maran tahay ma garanaysaa oo aabbo maan arag markaan saan uga soo tegay maan ilaahay ismug mar labaad iskumug keen tusin umal baanan ahaa markaa aabba dhimanayay markaa walaalo waxii ugu naxdinta badnaa bay kamid ahay meesha آمين الله سبحانه وتعالى ورحمته sidoo kale waxaan ognahay 2013 hooyo laftigeedu inay geeriyootay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa inuu jannaday fardowsa geeyo dabcan ayadaa ka dambeysay
haddii aabe aan kasoo yaro durugno oo adiga laftigaaga iyo walaalo fara badan oo kale aad leedihiinba aan ka hadalno mee qof buu aabe iyo hooyo ifka kaga tageen ba islaan intaa ogta anagu ilmo cumar dhuul ahaan 19 baan nahay cabdixaafid oo huno laakiin inta badan laakiin inta badan way yara dhinteen hadda waxaa nool adigu dhowr hablood iyo dhowr inamaa nool 19 ma wada noolna walaalo marka dee 3 baan hadda aan kaga jirnaa dhinaca fanka garanaysaa oo inta waqtigan hadda la joogo waqtigan xaadirka ah yani la joogo 3 baan ku jirnaa fanka kaga jirnaa ya agarti masha allah waxaa jira fanka maadaama aad soo qaaday awowgaa hore ugu jiray aabba ku jiray adigu aad kusoo barbaartay guri fan aad kusoo barbaartay adigu laftigaagu inaad dariiqaas hadda horey usii qaaday goormaad go'aansatay bal inaad kabihii aabba inkastoo la gashan karin aad isku daydi horta fanku wax naga maqan maaho dee waa wax gurigayagii ma garanaysaa wax profession aan u lahayn baan odhan karaa ma garanaysaa walaal marka aabbana uu nagu guwaabin jirayo ma garanaysaa markuu guriga joogo kaleeto noo yeeri jirayo heesa badan buu xitaa naxabadsiiye oo anagoo marshana iyo mar walaalayaal 3 ah markay 3 ahaayeen waa haflii telefishinka soomaaliya ka heesaya aabba gadaal kala heesayay marka uu la dhihi jiray aabbo isku daya noo tumi jirayo ma garanaysaa oo xoog buu noogu guwaabiyey inaan maaragtay fanka marka aniga hodan ahaan 8 jir baan ahaa markaan ka qayb galay anoo dhiganaya iskuulkii jamaal cabdinaasir hoose dhexe markaan ka qayb galay heestii iigu horreysay uu aabbana ii tumayey ee aan ka qaaday tartankii iskuullada garanaysaa ma xasuustaa hadda heesta haa waan xasuustaa heestaas waxaa la odhan jiray kolley caashaqaygii baa la odhan jiray dee waxaad ilaawdiyo waxyaaba aad ilaawi kartiyo waxaanad ilaawi kelin baa jira ma garanaysaa huna marka heestaasa iigu horreysay ayaan ka qaaday iskuulkii dugsiga waa gartay kolley caashaqa iyo saad isku tihiin dib baan uga imaan doonaa haddii ilaa yidhaahdee hodanay waxaa kaloo jira waxaa jira inaad adigu hadda hooyo tahay laftigaagu sharfan 4 caruura waad korisay oo habeen iyo maalin guntiga u xiratay inkastoo dad fara badan oo anigu aan ka mid ahay maraad halkaan noogu timid waxtaan u malaynayay inaad adigu xaas aad tahay oo hadda lagu qabo laakiin markaan waraysigaaga diyaarinay baan dib waxaan ku ogaaday inaan lagu qabinin 4 caruura oo qurbo lagu koriyo arrin sahlan maahan bal noloshaa yar nooga dhac huna horta anigu hooyaan ahay 4 caruur haysata hooyo keligeed baan weliba ahay oo 4 caruura haysata 4 caruur oo qurbo lagu koriyey oo weliba 3 wiil iyo gabadh ah wax sahlan maaha laakiin waxay u baahan tahay adayg iyo dadaal badan ma garanaysaa iyo dee ilaahay subxaana watacaala oo dee kula garab gala ma garanaysaa marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay uu ila garab galay oo cabtayda waan korsaday fanka inta badan waxaan uga yara hakanayay oo aan mar walba lugta gadaal uga yara dhigay waagii hore inaan caruurta marka horeeto waxbarashadooda ku dadaalo iyo koriinkooda alxamdulilah markaan arkay inay lugahooda ku istaageen oo maanta maaragtay aan odhan karo sidaa garanaysaa ayaan sin allailahay haddana dhinacan kala balyaro eeg saasay tahayna cabdixaafidow alxamdulilah hooyo keligeed oo caruur 3 wiil iyo inan korisayna dee waad iska garanaysa alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan kugu hambalyaynaa kuwa yarana ilaahay ha kuu daayo kuwa hana qaado oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda anfaca allah kaaga dhigo xaqiiqatan arrin sahlan maaha laba waalid oo wada jooga inay ilmo ku koriyaan qurbaha iska daa qof keliya oo weliba hooya oo wiilal korinaysa iyo gabadha yar ee quruxda badan maasha allah haddii aanu kusii yaro soconno aan ka hadalno hadda kahor waxaa dhacday in maaragtay tagtay magaalada muqdisho oo si weyn uu kuu soo dhoweeyey guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada thaabit cabdi oo shaksi ixtiraam iyo sharaf badan anigu aan shaksiyan u haya ah
bal tegitaankaagaas magaalada muqdisho iyo soo dhaweyntaas thaabit intaana waxyaalaha kalin bal na xasuusi 2017 horta maasha allah tabaaraka allah walaalkii taabid horta waan salaamayaa shakhsi aad u wanaagsan oo soomaalinimadu ku intahay oo wanaag badan aan kala kulmay weeyaan inta xusulkayga xabaalka sarreeyana anigii intii ilmo cumar dhulana waan u hayn doonaa abaalku maalintaa noo galay cabdixaafidow anuu waan tegey xamar waan tegey weliba fanaaniin baan barnaamij la waday oo muddo dhowr bilood 3 bilood 2 bilood 3 bilood gudaheeda ibaryayo hodanay walaalo na raac hodanay walaalo markii dambe aan yeelina aan raacay oo aan tegey alxamdulillah de xamar horta waa meeshaan ku dhashay oo ma garanaysaa cabdixaafidow anuu xamar baan ku dhashay oo dee xamartii xamarta ahayd ma garanaysaa marka walaalo laakiin waxaan kala kulmay waxyaabo aad iyo aad cajiib u ah ma garanaysaa walaal waxyaalahaad kala kulantay intaanan u gudbinin thaabit cabdi guddoomiye hore ee gobolka banaadir shakhsi walaal ah gacal ah ku garab istaagay inta badan meelaha fanka iyo xafladaha lagu dhigo laguma arko laakiin markuu gartay inaad tahay ina cumar dhuule waxaa galay dareen iyo maxaa la dhahaa hididiilo hor leh si hufan oo sharaf leh inuu kuu garab galay baa la iigu sheegay uu ku garab istaagay arrintaas intaadan waxyar ka sheekayn waxaan jeclahay guddoomiyaha hore gobolka banaadir taariikhda ku xusaysa thaabit cabdi si fiican baan ku naqaanaa waana xasuusanaa maalintii xasuuqii ummadda soomaaliyeed ee foosh xumaa u dhacay iyo kaalintaad ka gashay intaad gobolka haysa shaqada qabatayba intaa iyo inka badan baan kuu rajeynaya mustaqbalka dabcan wuu ku garab istaagay xaflad weyn buu kuu dhigay laakiin xafladdaas laakiin laguma wada faraxsanayn laguma wada faraxsanayn wixii dhacay adigoon dadkii magacyadooda loo sheegay waad iska garanaysaa barnaamijyadan anigu aan daadihiyo ma jeclin inaan dad magacyadooda sheegno oo aan ceebayno waxaan jecelnahay inaan ceebta dadka asturno maxaa yeelay teedanii baaba faraya laakiin arrin fool xun oo waxaa dhacday haybsooc lagugu sameeyo in lagu hor istaaga la isku dayey arrintaasay ku dhacday yaase mas-uul ka ahaa adigoon magacay sheegin fadlan magac ma sheegayo oo dee waxaan horena umaan sheegin laakiin maadaama caawa aynu wada hadlayno huno dadkii fanaaniinta ahaa markaas anigu fanaaniino ma garanayay intaa beryayey ee aan maaragtay idhi okay weeyaan 21 cisho ayaan anigu aan soo qaatay fasax intii iskuulka xidhnaa inaan carruurta qaar aan kasoo yaro tegey markaan imi meeshii hawl baa loo yimi markii anu waxaan aqaanaa marka hawl haddii loo yimaado hawsha in la wada qabto aysan hayna dee meeshii lagu kala tago markaan inamadii dhowr mar adigu iyo dumarkay ahaayeenba aan ku ori dee sidan ima wanaagsanay habeenkan la soo jeedayay iyo maalintan la jiifaya iyo meeshii shaqaynu u nime shaqadeen maxaynu aduu xoogaa way yara dhibsadeen markaa hadallo badan oo na dhex maray kadib waxay yidhahdeen markaan ku yidhi sidaa haddii lagu sii socdo anigu ma diyaaruma iyo haddaba waan iska noqonayaa ayay walaal cabdixaafido waxay sameeyeen markaa ii hanjabeen oo yidhahdeen halkan waa xamar ma garanaysaa xamarna anaa iskale anagaa iskale isku day haddaad isku dayda xamar inaad wax ka dhigato ya inaan xabad madaxa kaaga dhufanayana igu ballana dee waxay la noqotay wax aad u weyn oo ma garanaysaa anoo islahaa dee maanta fan kalama kulmi doontid waxyaabahaas iyo wax u egba waan eegay bis markaa waxaan ku yiri okay waynu aragnaa marka dan markaa sidii baan taabid aan naloogu wada xiriirsiiyey deedna ilaahay khayr ha siiye walaal aan aad u jeclahay walaalkay cabdulaahi wiish oo ah walaalkay laxmi ah ilaahay khayr ha siiyo aduu hodane aniga waa adeerkay wey waa iga wey أنا والله عبد حافظ وشخص آد وكراميسن وإلهي شرف في عز السيء ويا إن كبا مركا أدو سيدي ويقول صحيح تابد مركا إلهي إسنا خير هالسيء سيدي وتابد مركو أرنتي مقلي
ayuu taabido weli fanaan meel barnaamij ka dhigayo ama fanaan meel weli barnaamij ku sameynaya aan tegin iyo dee gobolkii banaadir markaa intuu taabid ugu sarreeyey ilaa kii ay igu wada yimaadeen habeenkii iyo casho sharaftaas quruxda badan ee taariikhiga ah ma garanaysaa oo uu igu yidhi xamar idinkaa iskale hodanay yaa idina kaama xigto xamar waxyaabihii waxay ahayd iigu yaabka badnayd oo mararka qaar xitaa fanka waxyaabaha aan uga hakado fanka ay ka mid tahay ma garanaysaa ama ay u horeysaa fankayga inaan yara hakiyo walaal haddaba hodan waxaa dhacday sidaanu ognahay in haybsooc iyo hadalla aan qurux badnayn lagugu yiri markaas aabbaha allaha u raxmaday ama qoyskiina si gaara loogu xumaynayey annagoon dadkaas arrimaha ka dambeeyey magacyadooda sheeginin maadaama aanan jeclayn dadka ceebahooda inaan qodqodno laakiin tanu ay cashar u noqonayso marka hore waxay ku yidhaahdeen bal noo dulmar iyo saamayntii adiga kugu yeelatay shaksi ahaan cabdixaafidow huno markii ay aan ku iri hawshii halkan loogu yimi aynu qabano soo jeedkan iyo aynu iska dayno aad soo jeedaan habeenkii maalintii oo dhan aad jiiftaan meeshan hawl baan u nimine maadaamana carruur kasoo tegaanu ma doonay bilaa macno in bil iskaga fadhiyo meel ayay ilaa 10 cishaan sugayey markii aan ilaa 10 cisho sugayo weli wax isbedeli jirin ayaan markaa la hadlayo markaan arrintaa u keenayna maaragtay waxay bilaabeen markaa waa kibir badan tahay adiga maxaa dadka isaga weyneyni ana dad iska weyneyd iska maadi anu balwad ma lihi cabdixaafido walaalo oo maaragtay wax balwada ma lihi marka balwaduna hadday leeyihiin anugu umaba diidayo laakiin balwadana inay eegaan shaqadii meesha loo yimina aynu qabano ayuu aniga muhiimkaygu ahaa ma garanaysaa markaan dee aan sidaa isku aan hadalladaasna dhex mareen oo aan idhi ma islama weyni mana kibir badnin laakiin hawshii aan u niminayn qabano weeyaan ayay markaa yidhahdeen maya saan waay kan aduu hadal yaan kugu daalinne markaan hadalla isdhaadhaafsanay laakiin aan xumaan ahayn isdhaadhaafsanay ayay xanaaqeen markaasay igu yidhahdeen halkan waxa waaye xamar annagaa iskale haddaad wax ka dhigtana dhegtaas ii dur weliba xabadkuu ii garaacday mid kamid ihi ma garanaysaa oo xabaada waan iska cafiyeye adigu halkaa xabadka halkaasuu intuu gacantiisa ku qaraacay buu igu yiri halkani waa xamar anaana leh buu igu yiri haddaad yani aad awood leedahay hodan cumarey bal xamar ku dhigo ani marka waxay la noqotay waxyaabihii wixii igu weynaa noloshayda intaan aan waalidkii kasoo maqnaa iyo intaan fanaaniin lasoo shaqeeyey waa beri waan lasoo shaqeeyey kuwan kale waan lasoo shaqeeyey yacni waxay ii noqotay wax weyn oo ma garanaysaa maa malaysanayn kelmadda hadalkiisii kasoo baxayo hadallo yaro qarmuun ah marka cabdixaafido horta anigu hodan ahaan aniga aabbahay wuxuu igu soo koriyey cabdixaafido inuu maaragtay kelmaddanay soomaalidu isticmaasho halkanaan caawa ka sheegaya kelmaddan soomaalidu isticmaasho midgaanka ay yidhaahdaan cabdixaafido walaal aabbahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyeen wuxuu igu soo koriyey qofka maaragtay walaal midgaan waxa ah buu yidhi hodanay ama aabba annaga dhanba dee noo sheego nagu soo koriyey kelmadda midgaan markaad maqashaan buu yidhi midgaan waxa ah buu yidhi ninka uskaga ah shaksiga uskaga ah dadka isku dira ummadda daba socda xaasidka tuugga ninka dabeecadda xun ilaahay cabsidiisa ku yar tahay marka waxa idinka wanaagsan buu aabbahay yidhi ilaahay naxariistana ka waraabiyo qofkii ilaahay xaggiisa idinka dhow baa idinka wanaagsan taasaan aaminsanaa oonan ilaa maantana aaminsanoon habeenna ku seexan nafar soomaali ah ayaa in yaroo intaa la eg kaa sarreeya ama kaa wanaagsan aanan ku seexan maantadaa aan kula hadlay xilliga aan kula hadlay waxay la noqotay marka wax weyn bay la noqotay xamartii aan ku dhashay xamartii aan joogay intaanan yurub iman aan dee noloshii reerkaygii kulli wada joogeen oo maanta la iigu hanjabay yacni inaanan lahayn waxay la noqotay wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn oo maanta fanka marka la eego inta badan cabdixaafidahuna waan hakadaa anu inta badan waan ka yar hakadaa marka waxyaabo badan baan uga hakadaa laakiin taasi waxay mar walba i hor timaadaa
ugu horeysa ka hakashada aan ka hakanayo fanka markaan taa xasuusto kale markaa dee sidaasu markaa walaalkay ilaahay ha dhowraha xafido walaalkay cabdulaahi wiish ilaahay ha ii daaye oo shaksi wanaagsan oo jecelahay ah ayaa markaan u sheegan ku yiri nimankii adugeed sidii ii bariyay sidii ahaa taasaa dhacday kanaa dhacday wayaan qaracmide ayuu markaa walaala wiish ilaahay khayr ha siiye taabid igu soo xiray taabid baa sidii markaa iyo allah u naxariistee awil ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo iyo walaalkii cabdulaahi markaa sidii buu taabidna markaa garabkaygu soo istaagay marka waxyaabihii iigu yaabka badnaa taasay ahayd hodanay waxaa muhiim ah waana cafiye baa jiro hadal weyn oo mugla weeye waxayna tusaysaa qofkaa tahay iyo gurigaa kusoo barbaartay bay tusinaysaa shaksigaas erayadaas ku yiri 3 milyan ee Soomaaliyeed ee muqdisho ku nool sharaftii karaamada la dabcan ma matalo waa qof asagoo fikirkiisa ka hadlayay waxaan magacooda u qarinayna fariintaanu markay gaarto inay ayagu maskaxiyan iyo qalbi ahaan isku saxaan ayaan jecelnahay oo mar maaragtay aan halkan ka dhagaxayno waana saad u sheegtay qoyska aad ka dhalatay gaar ahaan reer Cumar Dhuule Cali oo Soomaalida oo dhan baa taqaano meesha hadda tagtaan qof kastoo Soomaali wiin istaagaya sharaf aabaha oo lahaa weeye ehelkiina iyo qoyskiina ay leeyihiin dadka Soomaalidaanu inay ka waantoomaan haybsooca iyo faquuqa iyo qoyskan iyo qoyskaas iyo geedka jiridiisa la iskuma haysto oo ah dadka Soomaalida inay yihiin qoys qura oo walaalaha uliya diirkeeda ah waxaa kaa muuqata haybad iyo sharaf iyo qurux aabaha iyo hooyada ka dhaxashay horey baan u socon kuleenahay waa kugu faraxsanahay 100% cid kaa fiican ma jirto hodanay haddii aan ka soo tagno intaa yartaa ee dhacday cabdulaahi wiish iyo saaxiib keliya lama ahana walaalo aan nahay xaqiiqatan walaalkay Thaabit Cabdi iyo dadkii la midka ahaa istaagay weeye dadka Muqdisho maaragtay matali kara iyo inta kale dadka Soomaaliyeed wanaagga jecel haddii aan arrintaa kasoo tagno haddaan eegtid fanaaniintii hore ee aabaha uu ka mid ahaa iyo kuwa maanta jooga adigu aad ka mid tahay maxaad is leedahay way ku kala duwan yihiin ama way isaga eg yihiin ama inay isaga ekaadaan bay ku habboon tahay inta aanan u gelinin adigoo yaroo Jarmalka yimid oo jacayl digada kaa dhigay horta xaafidow huno fanaaniintii hore iyo fanaaniinta maanta waxay isu jiraan intay cirka iyo dhulku isku jiro waayo anigu waxaan kusoo akoray oo ku ag dhashoon kusoo akoray fanaaniin dad isjecel oo ma garanaysaa is-ixtiraama kala dambeeya ka khaldan lagu sheegayo xini jirin xumaani jirin isgacan qabta oo maaragtay dhinac walba iskala qabta dambiisha walaalo oo walaalo ilaahay ah oo ma garanaysaa anigu maanta haddii la yidhaahdo xudaydii waayo waxaan leeyahay xudaydii waa adeerkay alla yaa raxma walaalo haddii la yidhaahdo walaalo guduuda carway waayo guduuda carway waa eedada ilaahay naxariis jannaa ka waraabiya yacni kulligooda dhan aan u aqaanay inay eedaday iyo adeerkay ahaayeen dad isjecel bay ahayn laakiin kuwan maanta aniga waxaan hadaayarna waan kugu yidhi walaalo fanka waan ka yara hakadaa inta badan waxyaabaha aan uga hakado oo arrintii aan kuu sheegayay ay igu horreysay ayaa haddana waxay ka mid tahay kuwan maanta markaan arko dhaqankooda iyagoo isjiijiidaya markaan miidiyaha arko laba fanaanu intay isu soo fadhiisteen isku jawaabaya walaal anigu waan ka xanuunsadaa madaxa aad ii xanuuna ma garanayo waxay tahay waan ka danqadaa yacni waayo waxaan jeclaan lahaa inay maanta walaal fanaaniintu waa hal famil weeye waa hal qabiil waa hal qabiil waa hal famil ma garanaysaa walaal marka inay kala dambeeyaan oo midba midku ka horeeyo uu ka dambeeyo uu kor u soo qaado ka horeeyana kii dambeeyo inuu kii ka horeeyay ixtiraamo is asturaano carab iyo labadan baa isku xiga way isqaniinaan
laakiin haddii xitaa ay wax kala tabsanayaan oo isku dhacaan xitaa inaanay bulshadii u keenin bulshadii waxa weeyaan waa dad weliba especially soomaalida maanta waxay u baahan yihiin si maaragtay fanaaniintu haddii ay qoloqolo iyo xinxin iyo dagaal bulshadii walaal xitaa hadday jid qaladan ku dhacaan xitaa lama iyagiyo saa isku waxma hagaajin karaan soo ma ogdola marka inay maaragtay iyagu hadday wax ka dhex dhacaan xitaa dhexdooda qarsadaan oo iscafiyaan israali geliyaan oo ka khaldanka kala qabto ta khaldanta kala qabato ayaan anigu jeclaan lahaa hodan ahaan oo ma garanaysaa inta aan la hadlayna way ogyihiin kolay toole ayaan arrintaa kala hadlay waxyaabaha iigu weyn marka saasay inaan fanka ka hakada markaan arko markaan israado allayle haddaan hees soo saaraya amba waxaan arkaa laba la kala hayo ama laba isu soo fadhiis markaasaan hayo ay ka noqoto dib u yara nastaka yaraha ka hodanay bal ha kala nastaani marka walaal fanaaniintii hore waa waxaan la heli karin 100% mana isu dhowa mana isgaaraan dhaqan hadday noqoto dabeecad hadday noqoto يعني شغل اسكم لها شغل أنا قتيدة وين شغل اسكم لها ولا واقرتي waxaan jecelahay markaan inaan adiga kugu soo yara dhaweeyo dalkii laga soo tagay adigoo gabar yara weliba waad yartahay baan maasha Allah waxa soo gashay dalka Jarmalka dabadeedna hadda hadii la yara leeyahay xasaawi iyo shukaansi mar walba waa la arkayaa nin dhalinyara oo muslim oo Axmed la yiraahdo ayaad ifka isugu jeclaydeen ninka jacaylkiisu soo ku bilowday balooshe wiilka yara cad laga reebi waayay iyo gabadha yara quruxda badan ee saalay bal ka waran wala haya caawiye ka soo qaadaa in dad jeclaaday anu awlaad jacayl baan xaafido anu awlaad jacayl horta saa u ogsoono laba qof oo jecel baa sakay dhalay ma garanaysaa marka oo aabana aabi jacaylka ma garanaysaa marka jacaylkii baan halkii kasii qaadayo guursadayo alxamdulillahi rabbil caalamiin 4 caruur ilaahay ayuu isiiyey ilaahay 4 caruur u siiyey maanta on ahaystaa 4 caruur ah alxamdulillahi rabbil caalamiin wanaag iyo sharaf baan naga dhaxaysa hooyo waxaan ahay kaliyeeda waa caruur haysata marka waa ka waa gartay dabcan waa dul martay laakiin jacaylku labada qof ku dayn maayo waxaad ku qoslayso koogahay jacaylku labada qof buu marka hore ka yimaada dabeedna kan kala lagu tallaalaa ma adigu kaa hor yimid mise ninkaa odaygaa waa wato kula yimid abaabku haysta caawa xaafidow waxaad ka soo qaadan adigu gabadh awlaad jacayl ahayd oo ka soo adaa ku muday marka irbadda adaa watay kuma mudino marka alxamdulillah aduu walaal maasha allah tabaaraka allah walaal garanaysaa si qurux badan bay wax u dhaceen kale anu laakiin waxa weeye waxaan hayaa sheekadoo dhan baan hayaa waxaa la yidhi dabaaldegii ka dhacay iyo bulshada soomaaliyeed siday u soo dhoweysay wiilka muslimka iyo gabadha soomaaliyeed magaca iyo maqaamka ku leh ummadda soomaaliyeed reerkaa ka dhalatay waa la socdaa 4 ciyaal oo qurux badan buu ilaahay kaa siiyey ama idin wada siiyey allaha kuu barakeeyey wax laga sheekeyn kara maahan waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo arrintan jacaylka saan hal mar oga baxno hadda waayahan waxa weeye carmal baad ahayd hadda geel baan rabna inaan kaa qaadan maxaa soo wadaa haddaad hooyo tahayna hooyada samaysato maya anu waxaanay hooyo caruurteedii go'day caruurteeda korsanaysa wixii ilaahay qoray ilaahay keenaya waa gooni laakiin waxba kuma jiro ma yihi dumarka fadhigaaga ku sugita waa gartay waxa weeye annagu haddaan nahay reer cumar dhuule halkaan waxaa u fadhinaa geel iyo farda inaan kaa qaadano marka ama fadhi ama ha fadhina hawl kuu taalla weeye haddaad bixi weydo mid baan kuu soo diraynaa masha allah waa gartay masha allah gabagabadii ayaanu ku siqanaynaa waxaan rabaa inaan su-aashan kusoo gabagabayno inta badan waxaan jecelnahay barnaamijyadan dadka caanka aan ku wareysanayno inaan kusoo gabagabayno farxad
wixii kuugu farxadda badnaa ee soo mara hodan cumar dhuulaay markaad dib taariikhda u eegtid oo aad tiraahda alleeleh arrintaasu wax la mid ahaa ma jirto adeeray bal nooga dhac waxay ahayd markaan gabadhaydan curad aan dhalay noora yar markaan dhalay ayay maalintii noloshayda iigu farxadda badnayd ay ahayd cabdixaafidow anoo hooyo aabbo intaa kasoo maqnaa uu markaan tayar dhalayayna aan ahaa magaranaysaa gabadh aad iyo aad aan maaragtay alxamdulilah rabbilcaalamiin ayay farxaddan farxay yacni lagama sheekayn karo lagamaba sheekayn karo marka maalintii ugu farxadda badnayd maalinta inantayda curad dhalay walaal maasha allah waxa weeye magacaad u bixisay waa ka garanaysaa nuuraa loo bixiyey waa iftiin waa ubax farxaddaas waa dareemi karaa aabbaan ahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kulligood kuu xifdiyo insha allahu tacaala ugu dambeyntii hodanay maxaad jeceshahay inaad ku tidhaahdid bulshada soomaaliyeed sharfan ku daawan doonto haddii la yidhaahdo horta waan wada salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay afarta banjood kala joogaan ilaahayna ha ku xafido meel walbay joogaan waxaan soomaali odhanayaa oon u sheegayaa horta soomaali waa mid anigu waa saan u aqaano say doonaan dadka ho kala qaadaan quruxdayduna waxay ku jirtaa markii dadkaygu soomaali meel kasoo wada jeestaan ama ma garanaysaa ay isgacan qabtaan soomaali waxaan odhanayaa intaad iska daysaan qabiilka iyo ma garanaysaa iyo xumaantan iyo inta yare xumaanta wada maba dadku isku wada mid maaha inta yare xumaanta wada hala qabto oo ma garanaysaa hala iska qabto wanaagana hala badiyo marba keena dhibaataysan keena waxaysta ha saacido oo ma garanaysaa xumaantana hala iska daayo especially weliba waxaan u mahad celinayaa dadkii walaalahay ahaa ee soomaaliyeed ee shalay toole sida wanaagsan uga dhiibtay fikradoodii arrintii ninkii soomaaliyeed ee qaldamay yani aabba afka la soo galay walaashay farxiyo kaba yare iyadana thank you baan leeyahay walaal qaali waa walaashay lixmiyan jeclahay kulligood waxaan leeyahay waan idin wada salaamaya soomaaliyeed aynu noqono ummad walaalo ah oo hal meel kasoo wada jeesata oo ma garanaysaa waqtiga adduunyadu waa iska gebagebo nin walba qabrigaa 2 mitir ayaa sugaya walaal soomaali xaafida walaal marka waxa weeye aynu hal meel kasoo wada jeesano ilaahay xasuusano ka aan xitaa xasuusnayn ilaahay aynu xasuusino ma garanaysaa marka waxaan leeyahay xumaanku haydin wada xafida dhammaantiin walaalayaal wanaaga eega oo qabiilka iska daaya oo xumaanta iska daaya insha allah jannada inoo wada balan hagaag insha allah ilaahay iskuengeeya aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa sida hufan walaaltinimadana sharafta leh ee aad waqtigaaga qaaliga noo siisay ummadda soomaaliyeedna aad maaragtay ola wadaagtay fikirkaagii ra'yigaaga walaal qaali ah sharaf badan baa tahay aad iyo aad u jecelnahay allah ku karaameeyo intaas ayaan jeclahayo daawadayaal waxa uu ahaa waraysi aan oola yeelanaynay hodan cumar dhuule oo aad taqaanaan aabbaheed iyo ehelkooda oo dhan dadkaas soomaaliyada sharafta lah taariikhda kule ummadda soomaaliyeed qoyskaa sharfan ayay ahayd oo aanu rabnay inay aabbaheedna waxay ku xasuusato noo sheegto ayadana xoogaa yara aan ka barano waxaana jecelahay xoogaa yaro aanan ka oqoonin inaanu ka baranay laakiin marnaba cadaalad uma samayn karno inaan soo koobno lejankaas iyo taariikhdiisii laakiin waqtigoona eryanaya awgeed iyo hodana subaxii ayaduna kala haysa ayaan intaa kusoo koobnay hodan markaa aragtaan weydiiya markay yareeda jacaylku jahwareeriya jarmalka ay joogtay sheeko badan ba idinkaga dhacaysaa waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo gudoomiye hore gobolka banaadir thaabit cabdi hufnaan sharaf iyo karaaman kugu aqaanaa gudoomiye hore u soco inta dadka adigoo kale ay ku jiraan bulshadeena soomaaliyeed rajo fiican baanu leenahay insha allahu tacaala iyo qaar kaloo fara badan sidoo kale waxaan jeclaan u mahad celiyo walaalkay cabdullaahi wiish iyo weliba marwadiisa koowaad deeqo salaan baan kuu saaray walaashay guulayso
dad ahlu sharaf waayo labadaa ruux aad baan u jeclahay allah karaamay waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo walaalkay injineer wariye cabdifataax cali shuruuc oo barnaamijka nagala qayb qaadanayay aad baan idinku mahad celinaynaa intaas ayaan jeclaan kusoo kooba anigoo cabdixafiid maxamuud jaamac ayaa idinla socodsiinayay guul iyo gobonnimo waa mahadsantiin